misti baan dhageystay markaan dhageystay dhakhtarkii baan wacay waxaan ku yiri inankayga ma la hadli karaa magaciiyo maxamed xasan baan ku yiri sanadkiisii baan sheegay no this person ma ku jiro 1 year baan noogu dambeysay anigii yaa what you hiring baan ku yiri maxaad qarinaysaan inanka sawtan dhakhtarkii aan hayo way la murmeen walaalkii baa wacay way la murmeen anaa tagay markaa jimcihii ما استغفرنا السبت دي بان تجي ريبورت إنما دي بانو شغل درس كويابه السبت دي بان إننا يا وهاي تكسر الجاية أختار كي بان تجي وحنكويري وحندوني أنا محمد حسن الله الله ويسوع وعدين وأنا تيدين وأنا يرى جوبا يقول تبيسات راهن مركز سيران ما جيس الشيء وان شيء سبت كاتي ما يودين مركز سيران وأنا يرى جو why you hiring بانكويري why you hiring بانكويري محمد حسن 10 years بوي ماني ينم بقوة هاي markaan waxoogaa qeylqeyliyaan murannay waxaan ku yiri message-kan kuu shiday message-kii baan u shiday what is this baan ku yiri Chris habeenkii buu shaqeeyaa okay maxaad ila murmaysaa markaa macnaha waxaad inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun sheekadayadu waa taas afarta dumar aan ku taaganahay rag ma haysano maydkayagii wakaa waa taa hooyadii dul taagan waa taa maydkayagii waa tamaamadii ooyeysa waa la qashay keliyii baa lagala baxay beerkii baa lagala baxay communitygii waa diiday inuu wax ka qabto masjidkii waa diiday inuu wax ka qabto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun xasbiya allah wa ni'mal wakiil Soomaaliya heerkaasaanu maraynaa waanu baabanay nolol malihin naf malihin rag ma haysano waxaan ku noolahay ma jirto afarta dumar ee ku joognaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun barigii baa lagala baxay meel walba waa la qashay waa taa waanu eegaynaa rag la'aanba halkaana turtay xabaalahaasana lagu gurayaana lagu awdayaana lagu aasayaa inamadayadii dhammaade ilaahay subxaanahu wa tacaala noo maqan Soomaali maxamedey ragga isku haysta madaxda isku haysta ilaahay waxaan bariyay waan cuquba cirka idinkaga soo dhacdaa intii aan xaq rabin waa taas Offer. Can you open here? She needs see. She needs see. She needs see inside all. Can you open all? Yes, because she needs see. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سو دواada هل سو دواado ummadda Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan soo dhawaada هل سو دواado soo dhawaada fadlan waqti badan ma hayno hala soo dhawaada inkoo mahadsan siina gudbiya inkoo aad iyo aad u mahadsan aad iyo aad baad u mahadsan tihiin saaxiibada page-kayga ma taqaanaa ku taxan iyo ummadda Soomaaliyeed aad baad u mahadsan tihiin fadlan si faafiya oo si share gareeya wa calaykum assalaam Faisal soo dhawaada dhammaantiin Ifraax Yusuf soo dhawaada wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu waxaan waraysi ma taqaanaa in kaga hayaa oo si toos ah walaalayaal saad ogtihiin wiil Soomaaliyeed oo kaliyihii iyo beerkii iyo dhammaan uu ku jirtii ama ma taqaanaa organiskii oo dhan ma taqaanaa lagala baxay ayaanu soo gelinay page-ka dad badan baa ma taqaanaa soo wacay ama dad badan baa reaction ama dad badan baa waxay rabaan oo Soomaaliyeed macnaha murugada iyo dhibaatada inay dadkii la qaybsadaan inay warbixin ma taqaanaa war inta ka badan ka ogaadaan dhibaatada meesha ka dhacday iyo say u dhacday iyo ciday ku dhacday
marka waxaan ka codsanayaa inaad soo dhawaataan oo mataqaana aad sii gudbisaan waraysiba waxaan la yeelanaynaa hooyadii dhashay dad badan baa mataqaana runtii arrintaas mataqaana wax way ka falceliyay marka hala soo dhawaado meel walba ummadda Soomaaliyeed dhibaatadu mataqaana waxa weeye ay ku haysato oo meel walba mataqaana dhibaato haday gudaha ku joogaan dhibaato haysata ku qurbaha jooga dhibaato haysata dalkeena markii intaynu mataqaana Soomaali isdilnay kala qaxnay la kala cararay runtii dhibaato meel walba iyo mataqaana si walba iyo qaab walba waxa weeye u dhacday waxa weeye ba wadankeena ka dhacday ama ummadeena ku dhacday ama shacabkeena ku dhacday haday noqoto mataqaana amni ahaan iyo caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo sharaf ahaan iyo diin ahaan iyo waxaad moodaa burburka mataqaana waxa weeye dalkeena ka dhacay inuu meel walba iyo si walba ummadeena u saameeyay marka waa runtii arrin aad iyo aad u murugo badan oo u naxdin leh oo la yaab ah runtii qof Soomaali ah ama qof bili aadan ah oo sida arkayseenba videoga inta yar mataqaana waxa weeye laga duubay ama aad aragteen qaarkiin intiina ugu badan intaan aragna mataqaana way ka daawan karaan page-ku mataqaana ku jira waxa weeye runtii waad aragteen qofka mataqaana waxa weeye sida loo qashay ama waa hadii musiiba aad iyo aad Bashiir mataqaana waa musiibo runtii aad iyo aad mataqaana u naxdin leh oo argagax leh in macnaha isbitaalkii caawinaad laga sugahayay ama mataqaana dadku inay ku badbaadaan ama dadka inay mataqaana la caawiyo qofku u aadayay in asagiiba lagu qasho waa wax runtii aad iyo aad mataqaana looga naxo oo aad iyo aad maaragtay u argagax leh marka waxaan rabnaa walaalayaal waxa telefoonka ku jirta oo aan soo qabanaya insha Allah ta'ala hadii ilaahay idmo hooyadii dhashay mataqaana waxa weeye wiilkaas ilaahay ha u naxariisto waxa kale oo mataqaana ku jira walaalo kale oo ayaguna mataqaana xog ogaal ah oo mataqaana arrinta aad iyo aad ula socda oo ku sugan mataqaana waxa weeye meesha ay dhibaatadu macnaha ka dhacday inaynu waxaan rabnaa la qaybsano dhibaatada runtii wadankan Mareykanka ama wadamada inta badan macnaha qurbaha wa alaykum asalaam wa rahmatullahi Firdawsi soo dhawaada Firdawsi Ibrahim aad baad mahadsantahay aliye qaran soo dhawaada aad iyo aad baad mahadsantahay waxaan ka codsanayaa inaad faafisaan I know inay hameen barkii tahay mataqaana oo macnaha xilli hameen ay iska tahay dadka qaar mataqaana ay midnight u tahay Soomaaliya mataqaana hadda waagu u bariyay waan dareemi karaa laakiin waxaanu go'aansanay inaynu la qaybsano murugada iyo dhibaatada maamadaas dad badan oo mataqaana waxa jira arrinta ama telefoon igu soo wacay oo saaxiibaday uma tira badan telefoon in kama qaban kari dhamaantiin qof iyo laba iyo saddex baan u jawaabi karaa dadka uma wada jawaabi karo oo telefoon kama wada qaban karo inaan warbixintii oo rasmi ah in la wadaagno horta si aad u ogaataan warbixintu inay tahay wax jirta oo run ah oo aan ahayn haddaan maqal jirnay qof baa la qashay qof baa mataqaana kaliyaha lagala baxay maqal waxa laga yaabaa in badan inay mataqaana oo ina kamid ah ay maqal ku ahaan jirtay laakiin hadda reality mataqaana tan weeye oo macnaha ku noqoto midii aad macnaha run u aragtay reality u aragtay waxba mataqaana biyo kama dhibcaan ah xaqiiqadii ah marka inaan mataqaana aan runtii murugada la qaybsano oo familkaas murugada la qaybsano in waxa weeye inagu aynu macnaha caruurteena ehelkeena iyo sidii dhibaatooyinkan mataqaana in ka haysto qurbaha aynu ula tacaamul lahayn iskaga kaashan lahayn iskaga caawin lahayn waad ogtihiin wadankeena mataqaana dhibaata ilaa hadda ka jirta dad baa siyaasad isku haysta oo kursi isku haysta oo mataqaana aniga iga kacay aniga raba iyo wax kala jiidanaya oo aan macnaha ka dambeeyay mataqaana waxa way ama sabab u ah in dadka kaliyaha lagala baxo in mataqaana kuwa kale kaliyaha lagala baxay inay kuwa kale xabsiyaal ku jiraan inay kuwa badda ku dhinteen inay kuwa adduunka ku kala cararsan yihiin inay faamilo badan mataqaana waxa way dhibaato xun ay mataqaana ay soo fod saarto dadkaas ayaa masuul mataqaana wax masuuliyadda qaadanaya wax mataqaana waxa way meel iska dhacaya ama bilaa masuul ah ama mataqaana aan sabab lahayn ma jirayso kullu shay in mataqaana laha sababun macnaha in dadkan la qaxiyo beerka lagala baxo dhibaato ku dhacdo cararaan dad baa mataqaana waxaas waxa way sabab u ah oo mataqaana waxa masuuliyadda qaadanaya marka bal inagu sidaynu isku kaashan lahayn mataqaana u ahaan lahayn mataqaana waxa way dad midaysan iska warqaba iscaawiya murugada isla qaybsada wadamada qurbaha saad ogtihiin mataqaana waxa way lawyers baa ka shaqeeya kiisku wax kasto uu yahay waa inaad lawyer heshid qof asagu lawyer isu noqon kara ma jiro wuxuu u baahan yahay qofku qof sharciga wadanka yaqaana bartay mataqaana shahaado u haysta ama mataqaana u haysta mataqaana waxa way sharci u haysta oo sidoo kale ogolaansho u haysta inuu mataqaana lawyer yahay
kiisku wax kasta uu yahay lawyer unbaa mataqaana waxa weeye dabageli kara meel ka soo saari kara mataqaana meel saari kara lawyer mataqaana waxa weeye waa lacag waliba aad iyo aad u badan mataqaana Mareykan waliba lawyeradu mataqaana wax oo maaragtay igu soo orod amaahan aad iyo aad bay mataqaana waxa weeye qaali u yihiin walaalayaal waad garan kartaan hooyo Soomaaliyeed oo qaxooti ah ama family Soomaaliyeed oo qaxooti mataqaana ah oo waddan qaxooti ku yihiin oo noloshu iska adag tahay lawyer mataqaana waxa weeye awood loo leeyahay waa iska mataqaana waxa weeye yar tahay marka inaynu familkii caawino dhibaatadii la qaybsano umbaynu mataqaana ujeedadeenu ay tahay iyo inaynu mataqaana caruurteena iyo ilmaheena iyo mataqaana waxa weeye communitygeena aynu ogaano problemka mataqaana ku wajahan problemka haysta sidii waxaan oo kale haday dhacaan mataqaana la yeeli lahaa sidee looga tashadaa ma nahay dad ku baraarugsan oo mataqaana waxaan dhacaya markaad qof madow aad tahay especially westernka aad ku nooshahay waxa weeye xaaladaadu aad iyo aad bay mataqaana meel adag ugu jirtaa haddana markaad tahay immigrant haddana markaad tahay qof muslim ah runtii mataqaana ma ahan xaalad waxa weeye la qiyaasi karo dhibaatada mataqaana dadka soo wajahaysa marka walaalayaal inaynu dad mataqaana organize ah oo iska warqabno oo baraarugsan oo iskaashanaya oo iscaawinaya inaynu noqonaan u baahanahay waxaan ka codsanayaa inaad barnaamijka faafisaan ood ka qayb qaadataan oo sheer garaysaan hooyadii dhashay wiilka ayaan inii soo qabanayaa hooyadii dhashay wiilka ayaan inii soo qabanayaa asaga ayada unbaa mataqaana afkeeda mataqaana ina kugu warramaysa dhagihiina ku dhageysanaysaan insha allahu tacaala laakiin waxaan jeclaan lahaa si aynu hooyadaas u caawino si aynu mataqaana uga warqabno si mataqaana kiiskaani uu mataqaana runtii uu u noqdo mataqaana kiis caalami ah haddii inta mataqaana dhibaata dhacdo laakiin waxa weeye waxay u baahan tahay yaa ka dambeeyay macnaha in ciddii ka dambeysay maxkamad la keeno in la soo qabto in mataqaana waxa weeye warbaahinta caalamka waxaad u jeedaan ninkaas saas u qalan waxa weeye inaga warbaahin u ah inaga waxaad ogaataa inaan CNN iyo mataqaana waxa weeye idaacado kale iyo mataqaana Al Jazeera iyo idaacad ku hadlaysa mataqaana ma jirto oo adiga problemkaaga mataqaana waxay soo bandhigaysaa ninkaas saas u qalan waad aragtaan Mareykan meel walba warbaahin baa joogta meel walba idaacada joogta wax warbaahin oo soo bandhigaysa mare ma soo bandhigayaan ma rabaan inay soo bandhigaan problemkooda ma ahan anaga problemkeena tahay inaga waxa layna ka rabaa inaynu soo bandhigno problemka in haysta inaan warbaahinteena isticmaalno inaan awoodeena isticmaalno inaan together noqono inaynu mataqaana adduunka mataqaana social media waxa hadda lagu dagaalo ugu badan waa social media haddii aadan dagaalamin oo aadan social media ka dagaalamin oo aan mataqaana aan lagu arkinin oo problemkaaga aadan soo bandhiginin oo aadan mataqaana waxa weeye aadan challenge aadan samayn inta lagu qasho baan laba cali iska weydiinay inta lagu qasho adoo soo taagan oo harkii ah oo lagu qasho baan laba cali iska weydiinay marka waxaan rabaa khatar waxaynu ugu jirnaa inaga mataqaana hadda family-kan bay ku dhacday laakiin who is next kuwa hore way ku soo dhacday yaa ma garanayno mataqaana cidda ku xigta marka si ilaahay mataqaana hayna ka badbaadiyo وعليكم السلام ورحمة الله سافي حرسي سو دوادا waxaan ku codsanayaa qof walba 10 jeer inaad share gareysid videogan oo aad mataqaana waxa way aad ka qayb qaadataan telefoonku mataqaana waa inii furi doonaa iyo mataqaana waxa way su'aalaha iyo wixii mataqaana su'aalo oo mataqaana aad qabtaan laakiin marka hore barnaamijka mataqaana waxa way hala share gareeyo oo hala faafiyo ininku aad iyo aad u mahadsan waxaan toos u soo qabanayaa hadda mataqaana in ku xirayaa hadii la haydmo hooyada dhashay mataqaana wiilkaas oo magaceeda la yiraahdo Ayaan Maxamed Ismaaciil baan mataqaana toos waxa weeye mataqaana in kugu xirayaa waa ayada afkiina af dhagihiina aad ku dhageysanaysaan hadii la haydmo fadlan waxaan ka codsanayaa ininku aad iyo aad u mahadsan inaad barnaamijka share gareysaan meel walba mataqaana aad geysaan waxay u baahan tahay maamadan iyo familkan caawinaad u baahan yihiin waxaynu u baahanahay kuwii dambiga ka dambeeyay ee saas inoo qashay ee mataqaan wiil 27 jir ah ee mataqaana waxa weeye Soomaali ah ee soo taagan ee lugihiisa ku soconayay ee lugihiisa isbitaalka ku tagay ee lugihiisa mataqaana ku soconayay ee lugihiisa ku dhaqaaqayay ee banaankiisa marayay inta la qabtay oo saas loo qashay saas banaanka loogu soo tuuray oo BA mataqaana wax ka oran kara aysan jirin oo ilaa hadda aan loo soo xirin dadkii waxa ka dambeeyay oo ilaa hadda warbaahinta aysan ka hadlin oo ilaa hadda governorka gobolka uusan ka hadlin oo ilaa hadda maayirka uusan ka hadlin oo ilaa hadda booliska aysan ka hadlin waa arrin aad garan kartaan dhibaatada iyo culayska mataqaana waxa weeye ay leedahay meesha arrintu ka dhacday waa Columbus mataqaana waxa weeye waa saas weeye toos baa mataqaana hooyadii in kugu furayaa soo dhawaada waxaan ka codsanayaa inaad si mug iyo miisaan leh aan maamadan u caawino si mug iyo miisaan leh barnaamijka u faafino si mug iyo miisaan leh inaynu anagu warbaahinteena iyo awoodeena iyo midnimadeena iyo communitygeena aynu u isticmaalno marka waxa hadda toos mataqaana waxa weeye in kugu furayaa hooyadii mataqaana waxa weeye wiilka dhashay waa Ayaan Maxamed Ismaaciil hello assalamu alaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. soo dhawow hooyo toos baa waxaad ugu jirtaa mataqaanaa waxa weeye warbaahinta liban qarandoon media waxaa ku dhagaysanaya ummad Soomaaliyeed bal marka koobaad adigoo mataqaanaa raalli ah magacaaga haddaan noogu bilowdid xanaay hooyo Soomaaliyeed waxaa la yiraahdaa Ayaan Maxamed Ismaaciil. aad iyo aad baad u mahadsan tahay hooyo Ayaan Maxamed mataqaanaa Ismaaciil waa kaaga mahad celinaynaa hooyo xagee baad ku nooshahay meesha aad nagala soo hadlaysid oo aad ku nooshahay waa xagee Columbus Ohio. Columbus Ohio miyaad degan tahay hooyo waxaan arkaynay video mataqaanaa waxa weeye wiil Soomaaliyeed oo adigu aad dhashay oo kaliyihii iyo beerkii lagala baxay arrintaasi ma jirtaa arrinta way jirtaa malakumeed baa kole u geeyay dhakhtarkuu tegay arbacadii bisha 3deedii way isoo waceen ilaahay ma qadarin inaan arbacadii dhagaysto khamiistii baan dhagaystay markaan dhagaystay dhakhtarkii baan wacay waxaan ku yidhi inankayga ma la hadli karaa magaciiyo Maxamed Xasan baan ku yidhi sanadkiisii baan sheegay no this person ma ku jiro 1 year baan noogu dambaysay anigii yaa what you hiring baan ku yidhi maxaad qarinaysaan inanka sultan dhakhtarkii aan hayo way la murmeen walaalkii baan wacay way la murmeen anaa tegay markaa jimcihii ma istaqfurna sabtidii baan tegay riboodkii inamadii baan u sheegay dariska way yaabeen sabtidii baan inaynaayay oo hay dugsiga geeyay dhakhtarkii baan tegay waxaan ku yidhi waxaan doonayaa inaan Maxamed Xasan la hadlo waa isoo wacdeen waana diideen wana yara goob ay ugu dambaysaa tiraaheen markaasay yidhaan magaciisa sheeg waa sheegay sanadkaa taymay weydiin markaase waxay yidhaan oh 1 year ago why you hiring baan ku yidhi why you hiring baan ku yidhi Maxamed Xasan 10 years buu imaanaya nin buu ku ahaay markaan waxoogaa qaylqayliyaan murannay waxaan ku yidhi masajkaan kuu shiday masajkii baan u shiday what is this baan ku yidhi Chris habeenkii buu shaqeeyaa okay maxaad ila murmaysaa marka macnaha waxaad u shiday waxa weeye waa isbitaalkii laga soo wacay dhakhtarkii ku soo wacay oo telefoonkii aadan qabin amiis garaysay voicemail uu ku duubay ayaad u shido waxaad tiri waa kan voicemailkii aad ininka isbitaalka iga soo wacdeen oo dhakhtarka ay soo wacay oo wuxuu wiilkaaga waa joogaa kibaan u shiday waa garta waxaan ku yidhi Chris waayo habeenkii buu shaqeeyaa oo marka maxaad ii dafiraysaan aad wax u qarinaysaan adi markaan murmurnay nimankii sukuurka waxay yidhahan maam hadduuna inankaagii joogin wuu joogaa baan ku yidhi waa kan Dr. Chris waxay ku tiri habeenkii buu shaqaynaya adi markii dambe waxay ku yidhahan gurigaagii gurigii baan iska imid masaajidkii baan wacay inanka la yidhaaho horseed oo masaajidka maamulka masaajida ku jira horseed oo baan ku yidhi inankaygi waa la qashay maxaa dhacay inankaygii arbacadii 3 bisha ayuu tagay de ilaah malakumeedkiisa geeyay wuu tagay wuuna tagi jiray dhakhtarku kuma cusba inankii inta dhakhtarkii soo wac masajii dhaafay markaan waxay xireen sanad ka hor baa noogu dambaysay maba dhici karta isii nambarka isii wuu igu soo xiray sidii kadaalig baa isagana darbiga u saareen markaasuu yidhi wax ma ku weydiin karaa haa masaj baad dhaafteen Dr. Chris baa ku duuban wuxuu yidhi hi I'm Dr. Chris West Hospital. I have a Mohammed Hassan. I want to speak in mother. Please call me. Hey, maxaad u diidaysaa adigaan kula hadlayaa buu naagtaadan hadda hadlaysa can you tell me inta lagu soo waco ilmahaaga la yidhaha wuu joogo na soo wac oo aad wacdid oo haddana lagu yidhaha ma joogo what are you doing I'm mad okay de I'm uncle I'm mad I'm mad I'm mad waad naxdin wax cajaayib leh markaasuu markay dee murantay buu yidhi eedo inankayna anaga raadsan oo xagad ka raadsan bana way qasheen maya ma qaban karaan sharci ba waa sharci gaal ma yaqaane inankayga way qasheen baan ku yidhi sidii baan ku kala tagnay hooyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay isbitaalka mataqaanaa wiilka lagu qashay ma Columbus Ohio ku yaala waxba 10 minutes way jira maxaa la yiraahdaa magaciisa ma la wadaagi kartaa bulshada Soomaaliyeed isbitaalka magaciisa Dr. West baa la yiraahdaa address ma hayaa Dr. West baa la yiraahdaa Soomaalida dhan baa tagta dadka taga waa yar wax ka soo noqda saas inta u qashanayaan wadnaha istaagay ama maxay waa balabala baa sheegan imise qofkii yimaado dhakhtarkaas dhakhtar maaha Soomaalidu kama hadasho ma waxa weeye mataqaanaa maxaa la yiraahdaa isbitaalka Westby Hospital miyaa Westby Hospital maxaa la yiraahdaa si fiican magaciisa haddaad mataqaanaa u sheegi kadib Dr. West baa la yiraahdaa Dr. West Hospital Dr. West Hospital okay West ku yaala okay West Hospital oo Columbus mataqaanaa Westgeedu ku yaala miyaa Westgaan deganahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay isbitaalka wiilka qashay
qaabka uu ku tagay iyo sida uu ku tagay ma nin soconayuu ahaa ma nin mataqaanaa accident soo galay buu ahaa ma nin bal xaaladaas ka waran macnaha ma nin waxaynu ognahay Mareykan qof hadduu accident galo oo mataqaanaa shil uu galo in mataqaanaa qofkaas dhaqaatiirtu mararka qaarkood ay dhahaan qofka haddaan la badbaadin karin qofku marka hore asaga la weydiiyo oo uu saxiixo usually markii mataqaanaa qofku uu qaadanaya ID-ga ama laysinka Mareykanka su'aalaha la weydiinaya waxaa ka mid ah haddii aad accident gashid ama khatar xaalad khatar ah mataqaanaa aad la kulantid oo noloshaada mataqaanaa waxa weeye aadan badbaadi karin in waxa weeye kaliyaha iyo beerka iyo organkaaga mataqaanaa waxa weeye aad doonayn kartid oo macnaha qof kale ku caawin kartid marka wiilka ma accident buu galay ma qof accident galo isbitaalka la geeyay buu ahaa ma qof caadi oo soconayuu ahaa bal ka waran mataqaanaa isbitaalka sidee buu ku tagay inankan 10 sanaba wuu bukaa xanuunka exire la yiraahdo qabay dhakhtarka North ku yaala Riverside soo cadeeyay inuu ninkani buko SST bay u qoreen 10 sano uu tagay eedo 2 jeer maalintii marmar buu tagi jiray because hadda koorna dhakhtar la yiraahdo psychology uu iska soo turay lugtu ka jabay namaada iska tay waxba ma iska taynaan kulina kay ku dhakhtarka kama faaruqos irbadayga mudayaan baan idhi sida baan ku daayay waxaan maanta hadduu dhabarka ka kala jabin aan kaadida ka qaadayn alxamdulillah lugti kabantay marka ninka inaan dhakhtarka ku cusub ma ahayn haddii shaaqeysay laakiin inay qariyaan ma ahayn inay qashaan ma ahayn hadday gooran lahayn kaagi uu dhintay soo doono hadda jariya abaal baan ku qabaa kulli nafsi daaqatil mawt marka inaan ku caafimaad qabay halti buu ahaa inanka maxaada bishii afraad ayaa inankan walaalkii ayaa ku war naga daaqaylada seexo oo naga daaqaylada hadii kala bax saasuu naftiisa ugu dara uu wareegi jiray ilaa lugtu baraftay oo ay qarqaraxday markaasuu markuu sida walaalkii ugu qeeliyay jeestay wax midi yar oo kuwa maxaada idiyaal iska guru halka ku haystay jeebka ayuu halka gacanta kaga dhuftay xuduudda kadib dhiiggiisa baa daatay mid kale walaalkii abriis ugu yeeray bishii afraad labadeedii baa la xiray 7 bilood buu dhakhtarka ku jiray isjaalka ku jiray 7 bilood buu jeel ku jiray 7 bilood buu jeel ku jiray lawyer baan u qabtay madawa si kastuu la hadlay xanuunadiisii dhan buu ka soo guray dhakhtarrada waa nin buka waa sida hadda nin madaw yaa daynaya lama soo daynaya waxaa la yidhi maxamed waa mental weeye haddii hadal yaan kugu daaline sidaan uga daba ordaya ilaahay uu ka soo saaray bisha 3deedii uu soo baxay ninkii oo nastay dawooyinka uu ku qaaday bisha 3deedii waxaad ka baxday waxa ku mataqaana ku wada bisha hadda lagu jiray November 3deedii miya maalintaas ay soo daayeenba inankii ilaa baan ku dhaartay la eg albaabka oo weynaaday oo caddaaday oo soo nasto soo baxay markaas wuxuu igu rahay waxay igu yaraaheen waxaad aada meesha irbadaha ka qaadan jirteen waalida in badan baad ka maqneed isoo soo rajiskaree markaas soo rajiskareysid kaas maajar baa lagugu yeelayaa oo walba kii ku qaadi jiray markaas halkaa tag maadaama walaalkaa dhaawacdayna guri baa lagu ablay garaanaya halkaa wuu tagi jiray wuu ka soo noqon jiray berigii horeba halkii baan dhigay 10 barkii goormay ahayd marka aad dhigaysid meesha mataqaanaa la yiri iska soo rajiskaree oo 10 barkii taariikhdu goormay ahayd isla maalintii waaya habar yar isla maalintii baa arrintani dhacday oo la cuni doonaaye markaas waxaan ku iri soo wac anaa ku soo day may hooyo buu yiri baskaan soo raacaya okay inankii habeenkii ma soo hayn waar inankii maxamed hooyo markay isbitaalka aad tegayseen ma nin lugihiisa ku soconaya oo caafimaad qaba oo ku dhahaya hooyo anaa isbitaalka anaa bas soo raacaya iska tag miya maya marka meeshu maaha dhakhtarkii dilay waa meel iska soo rajisgareeya dadka waalan cadaan iyo madow iyo muslimba tagaan waa fahmay waxaan ka wadaa xagga macnaha caafimaad ahaantiisa waxaad noo sheegtay inuu aan ku dhameeyo xoogaa waxaad noo sheegtay inuu maskaxda mataqaanaa waxa weeye si ka ahaa dad badan oo waxaa jira daawo ku socda waxaan dareemayaa inaa macnaha dhibaatada socodka iyo waxyaabaha mataqaanaa aad ii sheegtay ila wadaagtay daawada oo macnaha si waqtigii loogu talagalay uusan qaadan jirin inay macnaha problemka ay samaynayso dad badan oo waxaa jira daawo qaato oo caadi ah oo waddanka ku nool oo shaqaysta laakiin daawo ku socda oo daawadooda waqtigooda ilaashada waxaan rabaa inaan macnaha ummadda Soomaaliyeed ay ogaato maalinta oo November 3 oo aad geynaysay mataqaanaa waxa iyo 4 waxay ahayd ba aad geynaysay isbitaalka ma aha lagu qashay waa meel kale oo clinic ah oo la iska soo rajisgareeyo oo dadka dhimirka mataqaanaa waalida qaba ay iska soo rajisgareeyaan si mataqaanaa kiis worker loogu sameeyo maalintaas aad ka soo tagayso aad geynaysay ma nin hadlaya oo caafimaad qaba oo xayi ah
oo hooyo iska ku dhahaya miyuu ahaa mise nin waxa weeye sariir saaran maya maasha allah nin todobada bilood ma irbadiisa qaadanayay oo meesha ku nastay oo ilaa baan ku dhaartay laxaadkiisa aad yaabaysid lugihiisu ku socday wuu wadnaa waa nin nastay ninkii wareegaya soconaya maaha waa nin nastay markaas markuu nastayna wuxuu ku haya baskan soo raacaya laakiin marka dawada oo ay ka go'do uma seexdo wuu socdaa dhaxan iyo samar ma kala jeclo ma damqanayo laakiin ninkan wuu soo nastay ha soo nastee markuu ka soo baxay baska soo raacay uu magaaladii yimid waxaan dhalinyartiibu ku baadho dhalinyartiibu la shiraya habeenkii sug telefoonna moo ka gaarin inuu soo furto habeenkii markii waagii baryay sidii ugu baryay ina waabay soo waceen anna ilaah baan ii qadarin inaan qabto telefoonka markaas message bay ii dhaafeen maalintii khamiistii baan suuqii u baxay waan raadiyey maxamed hooyo aad baad u mahadsan tahay waa dareemayaa mataqaanaa inaad mataqaanaa waxa weye hawl badan macnaha iyo ay jirto maalintii khamiista waxaad ka wadaa wiilka arbaca lagu keenay waxaad ii sheegtay habeenkii mataqaanaa 3 in the morning adigoo jiifa in albaabka lagugu garaacay booliis ay kugu garaaceen markaad albaabkii furtay aad tiri ay ku dhaheen waxaan ku wadnaa wiilkaagii oo xabsiga aan ka soo daynay waa kan wiilkaagii waxaad noo sheegtay subaxdii markuu waagu baryay inaad kaxaysay dhar u gaday haddana uu kuu sheegay hooyo waxaa la yidhi meesha kiliininka tag iska soo rajiis garee macnaha waxa weeye meeshaasaad geysay mataqaanaa markay barqadii ahayd 10 in the morning subaxdii ahayd halkaasaad mataqaanaa uga soo kacday wuxuu ku yidhi iska bax anaa bas soo raacaya maxaa xigay markii wiilkii ku dhahay iska bax anaa bas soo raacaye maxaa xigay ku soco halkaa kaga wad maxaa xigay waxaa xigay inaan inankii waayo soo noqon waayo anna maba ka shakiin balaayaa cunaysa waagii markuu baryaan maqaayadihii soomaalida iyo dukaanadii soomaalida wada tegay waxaan ku yidhi war maaragtan maxamed oo miyuu soo baxay baa qof waa igu lehay eedda wuu soo baxo ma garanayo xalay ima imaan bas waan iska soo baxay messagekii un baan dhegaystay khamiistii waan soomanaaye markaan afuun baan dhegaystay waaba dhakhtarkii baaba ka soo booday allaho inankiiba dhakhtarku ku jira habeenkii habeen baas bay noqoto hameenkaasi mataqaanaa waa hameenkii wiilka lagu keenay hameenkii ku xigay miya khamiistii bay khamiistiina waabay qasheeno waxay ku qoreenba john dow cid ma leh waa kuwa gudbiyaan dhamma ogi anna halkana ka raadinaya meelahano ayagii baan wareeriyo marba ku noqonayaan wacaya markaasaan wacay waa kuwa dee darbiga i saaray haddana jimcihii baan inankii wacay sidii bay yiraan jimcihii baan ku yidhi jimcihii dambe waryaare ma istakfirna maandaydii baan biliiska tegay station biliiska waxaan ku yidhi inankaygi waa iga maqan doctor wasti baana u dambaysay markaasay ku yidhi adresskaagu waa may waxay ku yidhi xaggaad degantay ama galaan adressi may weydiin maalintii ima imaan tuusdaydii bay ii yimaadeen tuusdaydii markay ii yimaadeen ba waxaan ku yidhi maxaa tahay ma maxamed baad wada maya soomaalidano ilma iga maqan ha is off 18 ha it's okay he can come in waxaan ku yidhi no my son is mentally I don't know where he go the doctor hospital called me and he denied he said nobody here 1 year ago number one buu idhiibo iskama buwaalin wuxuu yidhi I call you suna si aan war helo iguma soo celin jimcihii dambe ayaan masaajidka isxaadiriyey waryaara inankayga hala ii duceeyo masaajidka maxaa la dhahaa masaajidka magaciisa mataqaanaa dadka ma la wadaagi kartaa abubakar sidiiq baa la yidhaha waa mid xaafadayada laga dhisay afar sano taag abubakar sidiiq masjid waa garta ku soco maxay ku dheheen qolada mataqaanaa masaajidka markaasaan ku yidhi halay duceeyo luulay u sheeg imaamka iigu duceeye maxamed ku dhaynankayga hadduu meedyaha ilaahay ay birbiriyo haddii cadow haystana allah iga soo qaada haye waa loo duceeye waxaa la yidhaha insha allah waa loo duceeyey waana la raadinaya lama raadinaya niyuuska igu yeeraan ku yidhi inankayga way qasheen ma noole weligii bu tegi jireen wataas way qasheen marka wiilka horseed baa wuxuu yidhi eedo sidaa sheekadu ma aha lama qalanaye meesha war ma sharci baa jira waa gaale ma gaal baad aaminaysa waxaan la gallay dhiil maalin baan caasinay waxaan niraanay qof muslima aan dad muslimaanuna qof muslima ama cid halaada ama yuu lahaanin noo soo sheega waanu imaanaynaa qur-aan baan saaraynaa wuxuu rabaanu keenayna aye dhiilkii meebaan waa gaala miyuu kuu sheega waka qarsadee bas jimcihii markaan ka imid masaajidkii labadii iyo barkii gurigaan imid 9kii habeenimo oo ila bishu 12 tahay ayaa biliis igu soo garaac waayo biliis waan ka furay you bring Maxamed no sorry what happened markaasuu yidhi Franklin County baana soo wacay waxay ku yidhaaheen adresska taga waxaad ku tiraa wiilkii la waayay friishinku ku jira talaagada laa ilaaha ila allah maxamed rasuul talaagada mataqaanaa oo ku jira waa xagee ma isbitaalkiiba mise waa meel kale
meel kale sootana ku qoran John Doe ها ماشى معناها waxa way meeshaasi waa meesha dadka qofka aan la aqoon oo macnaha la aqoon waayo dadkiisa oo la ogaan waayo meeshaas ay geeyeen hadana way soo waceen ilaahay baa qarxiyay ilaahay baa kashifay markaasaan inankii ku celiyay xaafadda dariskan oo carray wiilkayga shaqo ku maqnaa kale Cabdullaahi markaasay iga furay habeen maxaa kugu dhacay alla inankayga waa la qashay waxa la talaagada ku jira alla miyaanad garan inankii bay tiri may aad iyo aad baad u mahadsan tahay hooyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa runtii arrintaada markii meeshaas mataqaanaa waxa way aad tagteen oo meesha dadka aan la aqoon wiilkii la geeyey oo la inii sheegay mataqaanaa waxa way meeshaas inuu joogo oo booliska ay ku dhaheen kowniga ay soo wacay waxay dhaheen adresskaas tag maamada mataqaanaa dadka halkaas mataqaan qofka ay raadinayeen halkaas buu yaalaa ha raadsadeen ma tagteen meeshii wiilka la kugu sheegay wiil baa wacay wiilkii horseeda masaajidka ku xidhnaa waxaan ku yidhi inantii baa wacday waxay tiri maxaa dhacay buu yidhi markaasuu tiri maxamed hooyadii biis baa u yimid wiilka waxaa la talaagad buu horseed maxaa ka wadaa hooyo dadku horseed ma garanayaan mataqaan ku daawanaya ama dadka maya inankan magacaanu ku baranay weye waa inan soomaaliyada masaajidada ku tukado oo masaajidka de reer buu leeyahay waa nin magacaasun bua loo yaqaanaa magaciisa kale ma aqaano waa inan soomaaliyeed inankii baa noo soo ortay inankii baa soo ma wuxuu ma dadka masaajidada ka shaqeeya ma masaajidku ka shaqeeya masaajidka dadka ku xidhan weeye maamulkana haya waa gartay ku soco waa gartay masaajidkaa tagtay masaajidku aniga jimcihii dhan ka hoyay jimcihiina habeenkii bisha 12 waa kan biliisku igala inankii halkaas ku jira wuu ii yimid wuu wacay markuu wacay buu ku yidhi inankaan raadinaynay 9 casho idinkaa hayaa la yidhi fuul baan kaa rabaa news wuxuu yidhi Dr. West ayaa soo wacay waxay yidhaaheen qof aan la garanayn baanu haynaa kaalay qaada bisha 4teed way qasheen way gudbiyeen bisha 3teed anay soo waceen 12kii markaan wareerinay dhakhtarkii aan mar walba tagayana la saariyay ayay iska soo saaray hadalkii xiriir halkaas ku jira marka wuxuu yiri eeg buu yiri inanku ma explain buu galay may inanka maxabadda ku taala may maxaa dhacay noo sheeg dee qoladaasana soo waxay John Doe id male halkaas la keenay markaas uu dad muslimiin u nahay waanu meeranayna waanu aansanaynaa bilisi eeg jirkiisa in la gooyo isag buu ku yiri wuu ku soo noqday wuxuu jirkiisa waa la jaray waana lagala baxay wixii ku jira markaasuu yiri khalad weeye 12 cashaan raadinaynay inay ilmaha qariyaan hooyadii baa raadinaysa annaga raadinayno wacnay halkaasayna mariyay waxay one year ago okay loo yaraan qabsanaynaa buu markaa wiilkii ku yiri thank you very much haye markii marka aan wacnay inamadii baa wacay inan committee oo xasan la yiraahdo gabadh kinsi waa taqaana gabadhii ayaa tiri waryaareen war baanay war maalinba wiil baa la qalanaya war waa maxay sheekadani war rotalo soo carara war sangeli meeye tollaay raggii baa arrintii gaarsiisay markay gaarsiisay ayaa arrintii la isku wareeray guriga iigu yimaadeen isniintii waxay yidhahan waxaanu wacnay qolada keer la yidhaaho dadka qaxootiga la shaqaysa ee dadka u dooda gabadhii carab bay noqotay gabadhii ninkii markay formationkii siiyeen ninkii dhakhtarka haystay wacday markay wacday ku tiri arrintaasaa dhacday marka waynaad baadhaa ma dhici karto way dhacday baar bay ku tiri 4 saac isiibu ku yiri 4 saac markuu ka maqnaa buu ku soo celiyey wuxuu yidhi inanka isagoo meydaan laga helay Wildwood haye markaas 7 baa naloo keenay 7 barkii habeenimo haye okay haddaba haddoonaad hooyadeed wacdeen oo message u dhaafteen maxay u dafireen ma dhici karto no bay tiri haddaba waxaan kaa rabaa bay tiri bal haddaday waxaan kaa rabaa bay tiri qofkii wacay ambalaaska iyo adreeska ka qaadeen kuma soo noqon markaas haddana salaasadii raggii wacday tiri dhagaysta ninkii way kuma soo noqon hadalkii buu ku margaday marka ka tashada lawyer baa idin siinaya criminal lawyer baa idin siinaya arda raadsada inamadii baa ninkii wacay talaadadii nin bay heleen ninkii ay siisay nambarkiisa markaas uu yiri ani kiiska waxaan ku fira 10,000 waanu ku siinaynaa buu yiri inankayagii waxa sidaa u galay bas markaasuu yiri saacadii waxaan ku shaqeeyaa 450 waanu ku siinaynaa waan soo ururinaynaa adigu kiiska noof oo noo hel bas arbacadii buu yiri ii keena gabadha dhashay ilmaha message-kaad haysaana keena inan bay raacday afka taqaana nin adeerkii iyo nin kala wada socdaana way soo galeen markaas soo galeen naga soo dabagaleen markaasaan oo xasan muxuu u yiri ninkii committee magaalada haystay waa COVID-19 laba qof wax ka badan ma imaanayaan
naayaa sirsan oo soo ku labadan inoo soo galeen markaasay tiri waa Soomaaliya sheekadooda iska diiday inuu raaco waliba waxa ku yiri xasan oo inaad maxaa aad u diiday inaad raacday rag baan rabnaa na garab taagan maya COVID-19 wayo dadka lama rabo wax ka hooyo adigoo mahadsan hooyo ayaanay adigoo mahadsan xasan ninka aad leedahay dadku ma garanayaan muxuu yahay xasanka horta bal xasanka laftirkiisa ummadda u sheeg xasan waa ninka community-ga Soomaaliga haysta nooradka ilaa 2000 ilaa hadda wuu haystaa waa gartay macnaha ninkaasi markii la rabay in mataqaanaa meesha muxuu sameeyey markii la rabay in meesha la aado oo community badan lagu aado miyuu is hortaagay macnaha miyaa ka wadaa maya waxaan raacnay inaan lawyerka in asaga iyo rag kala soo helay inuu na raaco samay meeshii lawyerka wuxuu yiri waa COVID-19 sabtay ka hayado markaasay tii walaal maxaad nooga hadhay waanu u baahnay inaad ragana raacnay community baa tahay maya COVID-19 wayo looma ogolo laba qof wax ka badan afar baanu ku galay meeshii lawyerkii ninkii message-kii buu dhageystay wuu yaabay wuxuu yiri aniga sheeko kale uma baahni keeskana ku soo gareynaya hooyadii bay soo waceen way qariyeen markay u tagtayna waxay ku yiraahdeen sanad ka hor baa noogu dambeysay marka intaas ay ugu filan haddana taa waxaa ka daran ilmihii ay magaciisa sheegeen ayay ku yidhaaheen John Doe baa la yidhaha marka intaas ay ugu filan waa suud garanaya ilmihiina iska aasta haye ilmihii markaas lana aasta ayay kuwa waxay yidhaaheen waxaa jira dhakhtar baada oo sideed ku qaata aynu baadno intaynu aasin haye haddana waa la soo noqday wuxuu yidhi ninkii 2 wiig oo kale la sugayo waar naga taga 2 wiig oo dambena meedkani ma sugayo wuxuu ku jiray 18 cashe ninkii lawyerka wuxuu intaas ay ugu filan markii la yiri la aasan lawyerka wuxuu fasaxa ilmaana haastaan hala aasee fasaxa waa nimankii baa loo sheegay haysta freezinga meesha talaagada qoladii baa isntii baa soo wacday adeerkood baa soo wacay waxa la waa la aasay goorma la keenay jimcaha jimcii labadii bay soo waceen hooyadii baan rabnaa hooyada maxay ka rabaan markii nimanayay bay soo waceen iyana noo fududeen yaa ku soo wacaya kuwa ku soo wacaya ma meeshii mataqaanaa oo freezinki uu ku jiray qoladii mataqaanaa joogtay miyaa waa ku freezinka waxay leeyihiin markay nimankii iyo gabadhii la hadleen ee la yiri lawyerkii meydin soo diray email xaggaan idiin gelayna waa nooradka masaajid nooradka ku yaala markaasay waxay tiri hooyadii baan raba maxa markaasay gabdhihii iyo wiilka leenka ku jira iyo naagta cadde oo maxay ka rabaan bay markii umeedka hay dhaqalanayeen bay soo wicine sawtay dafireen ayaana noo fududeen iska aasana wiilkeena markaasay tiri what's your name ayaan maxamed ismaaciil markaasay tiri inankaagana maxamed xasan okay kadib markii baa la yiri hadda la geynayaa bacda casr baa lagu tukanay duhur baa markaa bax markaasi waa taariikhdu waa goorma taariikhdu waa 12 bay soo sheegeen markaa jimcaha wuxuu ku jira haddana imista casho kale way kale waxa weeye 18 casho marka waa gartay arrintii baa la sugaya in la geeyo dhakhtarkii meeshii jaalkii la geeyo maanta dhan baan taagnay oo goorma ku tukanayna ukaadi ayaanay ukaadi isa hadalku isaga kaa qasmin waxaad mataqaanaa maraysay in lagu yiri waxa weeye magacaagii lagaa qoray lagu yiri lawyerkii uu yiri mataqaanaa waxa weeye u fasaxa mataqaanaa waxa weeye parentiga ama community-ga u fasaxa meydka way aasan karaan oo mataqaanaa amar uu soo siiyey kadib mataqaanaa adiga ay ku soo waceen ay ku dhaheen waa aasan kartaa xagee kuu keenaabay bay kuu maraysaa maxaad ku tiri xagee tiri ii keena aniga waxa uu la cadaynaya inaan hooyadii ahay inankana magaciisa sheego laakiin dad baa soo dhameeyay Soomaalidii iyo waxa soo dhameeyay gabar baa soo dhameeyay arrinta ku jiray waa gartay xagee lagu balamo in la keeno xagee la raba in la keeno waa masaajid ku yaala nooradka maxaa la dhahaa mood okay waa gartay waxaa lagu ballamay masaajidkaas in la keeno mood oo nooradka ku yaala waxaa la rabay in بعد العصر جنازة إن لقيتو كذا ما حد عاي. markii hore dhan COVID-19 muu jirin inta lawyer kulaha la inta Soomaalidu hadlaysa COVID-19 muu jirin adigu dadkana waa ka caqli badan dad muslimiin oo nahay la tashaday dhakhtarkii bay soo wacayaan ay leeyihiin ay maxaan sameynaa ninkii waxa la yiraahdaa la qaaday COVID-19 hadda tahay ma la meeyo waa la soo celinay bas todobadii markay ahayd ayay intii santan soo wacday ayaan dhakhtarkii ninkii inta laga daayay masaajidkii markuu tagay odayaashii wuxuu ku yiri COVID-19 baa wiilka ku dhacay anagu ma meeyna celiya moraaro dilaa habeenkii gaari kale yadana gaari labaad bay ku noqotay marka maxaa dhacay ma taqaana qolada masaajidku markii information kala siiyay ma in la soo xiriireen
ما تقانا ما يندهن معناها waxa weeye maydkii waxa weeye COVID-19 baa la sheegay maxaan sameynaa community-ga ma taqaan ninkii a sheegaysa magaciisa community-ga ma wada hadlay see wax u dhaceen maxaa dhacay annaga waxa la yaqaan إدنا لما يهدينا ويعليه COVID-19 ماما ما نقول عليه هو يبقى مركا هو يري عليه أيا الله سوى الله قبضي يا أديكون وحيكون إنك وحلا COVID-19 وين ما خبوا COVID-19 محاولة ما يعنى مرة من الدولة أنا حرسة وقفك كوبي الصدنات ولا يرى COVID-19 بوخبا مركا لقى تبي بنوي ماني والله مركا ساند معناها waxa laga wadaa COVID-19 buu qabaa waxa la diidayaa in ma taqaan maadaama ninkan nin qalan uu yahay saan aragnay oo video ka aragnay oo ma taqaan organiskii oo dhan laga baxay in community-ga la dhex keeno la furo ma taqaan waxa weeyaan la arko markaas warbaahin loo yeero waa waray dhacdo saasa la diidan yahay miya COVID-19 qof kasta COVID-19 Soomaali ma maydo qartaas baa lagu soo tiray caagad weyn halkaas la keena markaasaan maraar dilaacay maalintii sabtidii baa la soo qaaday waxa la labada la idin keenaya labada bacdo duhur annagii afar gabdhood oo kala israacnay meeshii baan tagnay ninkii yuhuud buu ahaa asagoo foon ku wada markaasaan ku yiri inankaygi ma halkan ku jira maysaan yes let me see baan ku yiri maysaan is missing 18 days after 12 na wala ikene meedkii tala halkaas ku jira please baan ku yiri I need justice waxaan ku yiri let me see ninkii intuu naxay ayuu ka soo degay meeshii uu fadhiyay xaggii dambe uu ka soo wareegay wuu soo dejiyay sariirta lagu qaaday emergency-ga uu la soo degay dhulkuu dhigay wuu furay markuu furay siibkii hore siibkii labaad uu furay inankaygi oo admoodisay inuu waraabo cuno dhiig uu ka wada buuxo shafka ilaa cunaha ilaa xundurta waxa ka hoosiya inantaa duubaysa markaad qaylinaa waa isku wada darnay ayaan ku iri bas hooyo waa ka xunahay I'm so sorry I know and ma taqaana aadan uga xunahay hooyo ha ooyin aad baan uga xunahay waxa dhacay aad baan hooyo aad iyo aad baan ma taqaana uga xumahay aad baan uga xumahay waa kula qaybsanaynaa xanuunka ilaahay ma taqaana hooyo samri iimaan ha naga siiyo waa dareemaynaa xanuunka ay leedahay qofkaagii oo caadi ahaa oo ma taqaana waxa weeye mental ma taqaana xoogaa maskaxda problem ma taqaana maahana ninkaas wax kale ma qabin waan dareemi karnaa xanuunka ay leedahay aad baan uga xunahay hooyo aad baan uga xunahay ha ooyin waa kula qaybsanaynaa dadka Soomaaliyeed dhan aad bay arrintan uga naxeen aad baan uga naxnay been ma kuu sheegaya ma taqaana wallahi inaan been sheegayn marka arkay meesha dilaacsan oo kala muddo in la kala dilaaciyay ilaahan ku dhaartay aad baan uga xunahay hooyo waa kula xanuunsanaynaa waa kula dhibaatoonaynaa maxaad oranaysaa hooyo maadaama lawyer hooyo ha ooyin maadaama lawyerada Mareykanka aan ognahay inay qaali yihiin maadaama arrintaani lawyer u baahan tahay maadaama aan ognahay ma taqaana waxa kiiskan uu salka ku hayo waa isbitaal iyo dhaqaatiir waxaan ognahay isbitaalada iyo dhaqaatiirtu inay Mareykan yihiin dadka ugu dhaqaalaha badan looyarada ugu khatarsan haysta waxay u baahan tahay Soomaaliya looyaro hal looyar xitaa ma ahan ka badan inta la hayar gareeyo arrintan in ma taqaana si dhab ah ma taqaana loo qaato si dhab ah ma taqaana waxa weeye ee looga daba tago dagaal xun in ma taqaana arrintan loo galo ayay u baahan tahay leeyahay maxaa yeelay asagiina cadaalad bay u tahay inteena noolna waxay inoo tahay ma taqaana waxa weeye badbaado inoo tahay hooyo may maqlaysaa hooyo ayaan may maqlaysaa maxaad oranaysaa ummadda Soomaaliyeed ee ku dhageysanaysa waxa ku dhageysanaysa aliisan kun qof oo Soomaali ah live ka ma taqaana hadda ku daawanaysa maxaad rabtaa inaad tiraahid ummadda Soomaaliyeed way ku dhageysanaysaa hadday dawladdaada Soomaaliya tahay hadday tahay shacabkaaga hadday tahay muxsiniinta hadday tahay community-ga ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maxaad ka rabtaa oo aad rabtaa waa ognahay dhibaatada ma taqaan dhacday hadda maxaa xal ah maxaad u baahan tahay oo ka caawina hooyo horta ilaaba ka shifay ummadda kale say u badbaado ayaa ilaahayna tusaya kashifaadka meeshan ka dhacday ilaahay baana ka shifay sida ummadda kale ilaahay u badbaadiyo ay uga waana qaataan waxaan oranayaa waxa weeye inaan cadaalad helnaa waxaynu nahay dad
كل شبك كشرين النقط كلي محمد دايما إلى هم باك شفاعة بقلال بولا قشويل يا قبر إكسنا كده حبتي كده على أساس وقال شرا مركز أنا رجل الحفرين أرتاب توقف الانتين مركين عدالة أنا لو وانشعلها سوماليين يقعدوا ريرا هاي وأكون نكى دم يسميتك أنا دي الراعي قرب كيجا تجنا لا يجحر المساجد كوستك واحد يقول من ملا تناسبتي والله يجحر أفر شنو تبغى ويلا حق النار كيف ده غيره دي إذا أنت ما عارف كلا إسكارسية بأيمت الله يلا حسنا مرتبو يمت أنا بأيمت سمونا عينا توي ده يري وحنا جرائد كان قراي مركز كنت ورم حد لا يدوتي مداد وقت كانوا سعودا مركز يري عندما ملا حسن ما وشت ومعان حسن وقش يا بيتري وهذا بكتاينا رنتو أنا كنا نحتاج الله سوماليا وبعنتاي توبشر بقول وريقو يارا نيوز وريقو يارا ولا يديدي hooyo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo aad u mahadsan tahay su'aashaasna waad ka jawaabtay macnaha mar kale haddaan si fiican dadka u maqashiisid maadaama ninkan la qashay oo meesha uu ku jiraba ay sheegeen ninkan mataqaanaa in organku ka maqan yahay oo macnaha aysan qarin oo macnaha meeshii talaagadii uu ku jira ay dhaheen ninkan organku waa ka maqan yahay markii la weydiiyey masaajidkuna qolyaha masaajidka iyo communitygooda sidaas ay u ogaayeen haddii markii macnaha ay soo hadleen oo ay yidhaahdeen ninkan COVID-19 buu qabaa mataqaanaa waxa weeye yaan masaajidka camal la marin oo communityga la dhex geynin soo ma ahayn inay yidhaahdaan war ninkan organka ka maqan qof organka ka maqan yahay qof COVID-19 qabana organka lagalama baxo lagama isticmaalo macquul ma ahan soo ma ahayn inay yidhaahdaan soo ma ahayn inay baarintigii la soo hadlaan oo ay yidhaahdaan saasaa la leeyahay maxaan samaynaa soo ma ahayn inay laga tashado maxaa dhacay mataqaanaa dadka masaajidka jooga culimmada ama communityga ninka mataqaanaa leaderka u ah xasan aa leedahay iyo kuwa la shaqeeya ma is leedahay shaqadii la rabay inay communityga u qabtaan oo garab istaagii ay inay garab istaagaan way qabteen mise waa ka gaabiyeen baad leedahay maxay tahay hadalka aad leedahay way ka gaabiyeen waxay uga gaabiyeen markii dad muslimiin ah COVID-19 lama taabto war COVID-19 ninkay ku maqan war waa caafimaad qabnaa war halti buu ahaa bil walbana dawadiisa waa lagu siin jiray jeelka war yaareen war miyadan muslim ahay war gaalaha aaminina war igu yeereen newska tan iyo maanta iyo tafsireenan dhakhtarka intaan tigay igu yidhaaheen wan yarago yaa kula hadlaya adaaba hadlaye wax damqanaya ma jiro waxaad madaray raggii soomaalidin biyo lagu shubay communitygii waa kaas kuwii kale masaajidada may hadlin ani markii lagu yidhi wadaadadii baa celiye baaba naxay oo maxay u odhan waa inaka iyagu COVID-19 ma qabo marka ilaahay ummadana isu soo jeediya ilaahay hadeeya dadkan inanka ilaahay samay كستيو من كذا الله كيسوع بقول لا والبن لا سوى رجال السنة لكن العرب ما تبعت تمام وتتبع له بقصة بس تشالك تذكر قارته على تشالك قفار الله ما حلو ويا تركاله يا قواش كتوني كميتي ما شرو بقول قارورة ساقوة تتجي وحال يا واحد كتب تتجي يا ماله هو يا والبيت ساق برارة نساء الكلمة ده كده ماليا ما كان والله يقص على رنتي والله يقص على ليش كمان هذا ليش كمان قبابين اللي يرور عندنا حتى كمان ورينا قبر اللي نقول سمينا وحكى الله ماله ساسا الله بنيا ما قام حكى بقيا إلى أباكو أمورتي توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وقرنا يدمر بها يرك هذا بمجد والأرض حتى أنتوا أدركوا سوا يقول لهم هذا كلشان فيسبوك والحق الشتمان مع إنه قالوا ما يقولون كسمان وحي قالت تاجنانو يسكا يقول يا رب aad iyo aad baad mahadsan tahay hooyo ma isku daydeen intii mataqaanaa waxaad noo sheegtay ilaa 3dii wiilka ilaa 4tii inuu la qashay ilaa 3dii maanta bishu mataqaanaa waxa weeye waa 20 maanta waa November mataqaanaa absolutely waa 22 bay hadda isu bedelaysaa 22 bay noqonaysaa maanta ila ka daa 22 ilaa iyo mataqaanaa 4 waa at least mataqaanaa 16 bari 17 bari 18 bari intaas mataqaanaa ma jirtaa inaad isku daydeen ama cid kaa caawisay in maadaama wiilkaaga qaran yahay maadaama isbitaalkii intaad mataqaanaa ayagu ku soo waceen haddana ilaahay awoodiisa sorry iga raali ahaada haddana ilaahay fadligiisa mataqaanaa ay fashilmeen oo macnaha waxa weeye markaa tagtay ay ku dhaheen wiilkaagii ma hayno ma jirtaa cid mataqaanaa inaad isku daydeen news inaad raadisaan inaad communityga tiri war news ii raadiya inaad tiri mataqaanaa masaajidada iyo imaamada masaajidka war newska mataqaanaa ila taga ila newska xafiisiyay leeyihiin waa la wacaa waa loo tagaa xafiiskooda la tagi karaa dhibaatadan aan qabnaa community ahaan ma jirtaa cid ku garab istaagtay haba yaraatee oo macnaha in la soo bandhigo mataqaanaa dhibaatadaas ku garab istaagtay may intii ba alla waxayreen loo yaraan qabsano arrintan
aad baad hooyo hadda maxaad rabtaa ummadda Soomaaliyeed waxaad u baahan tahay mataqaana looyarka in laga caawiyo oo looyarka dhaqaalaad u baahan tahay looyarka laga caawiyo soo ma ahan والله لا يقيسك كلا سنة تبتلى لا يرتي عنه عدالته كان ما قرنا يا إلهي بالله يرى هدات هيسان كوا كلاتا إلا يقطع الله عاويان شعلا إنك حقي لا يقصر تقال ذات لي aad iyo aad baad u mahadsan tahay ma weydiisanaysaa dhaqaale looyarka mataqaana lagu bixiyo ama inta ha joogo ama Mareykan meel raba ka joogo looyarka la qabanayo waa lacag waad ogtahay waa lacag tiro badan ummadda Soomaaliyeed way ku dhageysanaysaa xageebay kugu soo hagaajin karaan haday rabaan inay mataqaana lacag sameeyaan ma goofan baan ku furnaa oo lacag ugu aruurinaa ma waxaad leedahay aniga wax igu soo hagaajiya maxaad ummadda Soomaaliyeed u sheeganaysaa ما قوم قالوا قروريو مركب ماشي استاذ أبتين اللوير في عن شباب حقنا وقبتان بالكم وحنا قبني لقى يا بينو ننكا عدو يا حدا قال كان يبقى طبعا كنت بقول بان كاسك كفر لكن إلهي إنه خاص بكم لما هو بدأ بس إذا شيء سيدو دونا عداك سوء حنا كنت كم فلسطين دونا مركب مثلا أسرع داما أما أفريقيا أما نين مسلمة وإلا الرادية بالاستعداد كله مسلم كنا لين waxaan malaynayaa aad iyo aad mataqaana waxa weeye inaad u dhageysanaysaan ummadda Soomaaliyeed waa hooyo mataqaana waxa weeye ayaan Maxamed Ismaan oo ahayd hooyo Ismaaciil aan idhaahdo sorry waa ayaan Maxamed Ismaaciil waa hooyadii wiilkii la qashay wiilka magaciisa mataqaana hooyo ma la wadaagi kartaa marka la dadka waa sheegtay Maxamed he محمد عبد حسن باليرا waa hooyada dhashay Maxamed Cabdi Xasan oo sidaynu fiidiyowga hore ka aragnay mataqaana waxa weeye beerkii laga baxay iyo kaliyihii runtii mataqaana waa arrin aad iyo aad u naxdin leh waxaan ka codsanayaa inaad caawisaan inagoo mataqaana isku duuban inaan caawino u istaagno hooyadaas inaan caawino ka qayb qaadano mataqaana waxa weeye caawinteeda sababtoo ah waxa weeye yaa maali jiray bay mataqaana maraysaa yaa mataqaana dadkan haddaynan difaacan maadaama aynaan haysan strong government oo maanta safaaraddu mataqaana intay warqad u dirto wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka aysan dhahaynin ka soo jawaaba mataqaana waxa weeye waxaan meesha dhacay haddaynu leenahay mataqaana dawlad xoog badan dadkeena saas looma qasheen waxa weeye waa dawlad la'aanta iyo tabar la'aanta mataqaana waxa weeye meesha waxa ina dhigay laakiin waxaynu u baahanahay community ahaan inaynu mataqaana waxa weeye iskaashano oo mataqaana runtii aanu isa soo waxayno waxa dhinaca kale telefoonka ayadana kaga jirta xawataako oo ah mataqaana ayadana reer Ohio oo waxa weeye hooyadii mataqaana runtii arrintan aad iyo aad uga qayb qaadatay fiidiyowgii mataqaana aan in la wadaagnay mataqaana waxa weeye qofta ku tigsatay waxa weeye mataqaana xaniyaheeda iyo dadnimadeeda iyo kartideeda isticmaashay xawataaka ma maqlaysaa مقلة ديبان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آدي آد متقنا وحوي أمهات سنتهاي إن وحوي مرة بقولتها أنتهاي قرنك مدة الصوماليات وانو أجين هريبا نو أجين ما أنت مدة الصوماليات ويسي أجاتي ومتقنا كاجمها العلنينا إن مرة بقولتها أنتهاي مدة الصوماليات إلى أنت هذا حاوتاك ومقلة سي متقنا وحوي هو أيان محمد إسماعيل محاد قدر لهي بسم الله الرحمن الرحيم ويرحب بصدايا التليفون دي بعد نفط اي كياناي الحمد لله رب العالمين وحان ku darsan lahaa anagu kullay maxamed waa un message aanu malaynayo inuu ku fashilmay mu'amaradii America waday ama dhaqaatiirta Mareykan wadeen message ilaahay noo soo diray weeyaan laakiin waxaan ognahay inaan qof dhalinyaro ah oo naga dhintay ama haku accident ama xabad hadisho ama like si kastaba ha u dhintay aan organ laga tagin maxamed ilaahay subxaanahu wa ta'ala nin mantalabu ahaa laakiin iska nool oo iska dhulkiisa iska jooga ninka waa la qashay waana proof oo ninka de looma hayo ilaa iyo hadda dhakhtarkii kama soo jawaabin goortuu dhintay wuxuu ku dhintay ambulance qaaday dareysku yiilay isagoo meedaan meel ka helay un bay yidhaaheen hadal kale waa laga waayay markii la yidhi yaa saacadee buu dhintay saacadee hesheen yaa soo koolgareeyo noo soo diray foonka idiin soo diray ambulance qaaday meed lama qaado aan booliisu imani meydka booliiska qaaday riboodkii intaa horta midna way ka jawaabi waayeen message-ka ay soo direen baa fashaliyay ninka kalena de wuu sheegay inuu out organis uu yahay oo caloosha lagala baxay laakiin aanu xabad iyo dhib qabin allahumma englishtayduna waa broken laakiin codkiisa waxaan ka dhageystay inuu yidhi shulbi inuu yahay waxaan overdose-ka la yidhaaho laakiin
caafimaadkii weli baaritaankii ma soo bixin overdosena waa hadal weeyaan waa waxay caruurta ku makaleen ku dhameeyeen kaliya uga gurtaan dad u qaybsan baa jira waxay maalin dhoweed gabadhu ugu tiri dukaankayga dabadiisa 3 caruura baa overdose lagu siiyey kamarada qabatay rag cadaana siiyey wayna carareen halkiiba mid naftu kaga booday labadii kalena ilaahay baa survive gareeyay liibano haddaan kaaga soo qaato ka hadlo community-ga yaga ama nolosha aan magaalada ku joogno ama masjidadayada annaga saraxatan mar horaan ka hadlay oo waxaan idhi masjid baan ودي قف بان إلى عاوية مركا وكما ليدي مركا كمان ودين إنه قللا سلادة هاي قبيل كوية لكن وكما بابن ديدي أنا أقول because أنا أضو مرة وحنسعونا يي وسعونا يي قفيرو الماء كوي اللي وأنا نقوم بي أحد waxa hadda timid culus soo jariyay nimada kaas uu noolaa maxamed uu noolaa marka life baan inaan xaqabad ku aragnay ahayd sideeda mar ummadda nabi maxamed ee ilaahay samaystay ama ummadda ilaahay samaystayba laba qof oo walaalaa kuma wada jiro anigu naftayda waxba ma tara laakiin qofka Soomaaliga dhibta gaadha aad baan uga xumaada aad baan uga dhiidiyaa waan qayliyaa markan xabeebsadana de waxa la yiri farqu fool ma maydhe waxba ma qaban karo aadi aad baad u mahadsantahay xaawataaka waa gartay waxaad leedahay community-ga dadka leader-ka ah iyo dadka mataqaana masaajidada jooga ee imaamada masaajidka mataqaana ayaguna kamid ah community-ga leader-ka macnaha siday ahayd inay ummadda ugu shaqeeyaan sidii la rabay inay mataqaana waxa weeye dhibaatada u wada wajahaan sidii la rabay inay mataqaana ummadda waxa weeye ugu adeegaan uguma adeegayaan saas miya مرة أنا قلنا أفكر كبلارية عدنا وبرجع هرالي العلماء وحكشة طيب بس وحلا يقروا إله بيتقان قف الإسلام كأونا هدورون تشيء ويبين بوشيغا وحشيغا وابين أنا الكوميونتي ما هيصنو أنا وحنا قف نك اللي راح حسن وسيبود كرينتي وحكي لنا كم سيبود كرينتي وإحنا أمدونا ترين برجع ويلكا ويلد دالي ويلسوا داي جرو وكريه قف كلا جماعة قصروا وسمية وخنت على جشيجا المعلمي دويدة عن هالك كبرورنا يي عن قبل دقائق ذاك أكهية عن لا لوير هلا قبطان مظاهرات نصع وريال هلا كانوا شورنا ليس هلا كانوا مركبة استقاموا يرى قفك وجوهرية قبل دقور جاد السوق قلان ويرى استقوا هاي الرجا kuwa dambena subaxdii dambaan qayla doon diray oo aan u yeednay ama aan la bisheen inanka ama Soomaali weyn ha ahaadeen qofka ibn aadankaana qofka wax ku taraba walaalka adiga ah qofka walaalkaayu haddaan wax ku tarin waxba isma diidin marka yacni qabiilku marka waxba ma taro laakiin waxa wax taratayada iyo aad baad u mahadsantahay xaawataako laakiin annagu markii waanu hadalay oo waxaanu nidhi inaan ka tolkiisina hal raadiyo xasan laftigiisa igu yiri ana raadinaya tolkiina xaawataako aad baad u mahadsantahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma jiraan dad kale oo Soomaaliyeed ama dhalinyaro kale oo problemkan oo kale kala kulmay mataqaana waxa weeye state-ka aad degan tihiin ama community-gu ma la kulmaa dhibaatadan oo kale okay liibano aan ku dhameeyo waxaan ku idhi qofka ibn aadanka marka wax dhacaan haday wax hagaagaana wal wala soconaya haday wax qaldamaana waxa lagu oranayaa waxa maxaad wixii cid u xigay ugu sheeg weyday taas way baan dadka isugu wada yeednay tan aad leedahay dhalinyarada annaga isteedkayga dhalinyarada aad baa loogu laayaa dhalinyaradu iyada islaysa offer dose baa ay ku dhamaadeen anigu de mayd ma maydin oo ma ihi ragga dumarka waruma hayo laakiin ragga ma ihi dumarkana dee kolley ma jiraan dhalinyaro habla ahoo sidaa u dhintay accidentku inta badan waxa uu ku dhacay ku dhintaa rag ama taraaglayaasha ama dhalinyarada isdilaysa ama sidaasay tahay anigu waxaan taagnaa oo xaadir ah wiil Soomaaliya laygu dilay masjidka mood baan ku tagnay jinaasadiisii markaan mood tagnay jinaasadiisii anigu dadka iyadoo markii dambe laygu diiniyan hooyadii mooyee looma ogola mar haddii
ninku qaangaadhiya inaad eegto waan hooyadii aad baan gurigeeda uga soo ooyo uga soo calaacalo aan isgarab gallo aan wax qabsanno qof ku dheh hadalkiisu meel kama soo baxo maydkii waan u galay waxa ag taagnaa markaan maydkaa u galay ninka la yidhaaho sheekh axmed yamani allah yaxfidaha sheekhaasi ag taagnaa iyo hooyadii waa la aamusin waayey markii la yidhi maxaa kugu dhacay kama ooyaya inankaygu inuu dhintay waxa ay ku sameeyeen baan ka ooyaya maybe waa loo furfura gabadhiina way joogtaa magaaladii joogtaa taas waa taas inan kale waxaan garanayaa gabadhin adeertay u dhashay habeenkii kowdii habeennimaa la dilay labay ahaayeen walaala ah mid wadnahay kaga dhacday meelaha wadnaha agtiisa xabadu kaga dhacday ka kale meeshay kaga dhacday anigu ilaa hadda ma garanaayo fiid bay kowdii habeennimo way qaateen inankaasu isagaa qoray dareyskooda isagaa magaciisa qoray isagaa wax kasta qoray inankan qalliin bay geliyeen markaa wadnaha ay kaga dhacday xabadu inankan kalena dee allahu aclam sawaab inagu ma aynu arkayn allah raxmaanka unbaa ka wakiilo arkayay umay soo sheegin gabadhii dhashay wax kasta way garanayeen wax kasta way hayeen may soo hadlin barqadii markay salaadii subax ahayd malaa meelahaas baa kii soo miiraabay xabadu laga saaray wuxuu yidhi hooyo xalay aniyo xuseen ba xabad baa nagu dhacday xuseen meebi inankeeni wax ku dhacay warumahayo inuu dhintay markaasay la soo waceen oo yidhaaheen inankaagii wuu dhintay organka ma kala bixi karaa waabay u caddaysteen maya bay tidhi muslim baanu nahay lama taaban karo wakaas galabta waxay ii sheegtay inankii wax ka maydhay markii uu arkay maydkii wax ka maydhay wuu la deganaa iyadaa dhashay inuu ka guuray oo meel kala tegay haddana iminka la yidhi wuu xanuunsanayaa oo madaxiisa ama buraa ku taal ama istarays baa wax yeelay waxaan idhi maxaa koosgareeyey waxay tidhi xuseen sidii loo qalqalay ee loo jarjaray buu waxay tidhi waxaasoo dhan koosgaraysay macnaha walaalkiis markuu arkay oo la qalay oo mataqaana uu arkay walaalkiis sida loo qalay go'an tahay oo meel walba go'an tahay dhinac walba loo jeexay weeyaan waxay igu tidhi xitaa suuradda inanka xitaa waan kuu soo dirayaabay igu tidhi caawayada ay soo fasaxday maan ka hadleen oo waan ka baqaa soomaalida gabadhuna waa in adeertay inankuna waa ina yaroo soomaaliyadan eeda u ahay allah u naxariisto waxa qolyaha maydka maydha unba arrinkaa ogaan karaa aniga waxaa laygu yidhi waxaan arkay dad xanshashaqayo oo leh inankii halkaa lagu dilay ma garanaysaan yes xitaa lafi lagagama tegin lafi waa laga gurtay qaarle baan arkay laakiin qarsanaya laakiin taa waxaa la weydiin karaa ninka maydka dee maydha un because ninka maydka maydha hadduu maydkaas dulmo oo ka sheegi waayo xaqa iyo runta dee aakhire isagaa organkiisa loo haystaa ilin maydku wuu karaamaysan yahay ilaahay baa karaameeyey aad iyo aad baad u mahadsan tahay xawtaako aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa garanay mataqaana waxaan umaleyn ummadda soomaaliyeed way ku dhegaysanaysaa arrintan hadda kiiskan dhacday waxaan ognahay inay loo qabtay looyarku waxaan ognahay maraykan inay lacag badan yihiin maxaad u sheegaysaa ummadda soomaaliyeed oo ku daawanaysa maxaad odhan lahayd والله أنا قهرت اللوير كاكون بعلو السمي وحنا نقول على السمي اللوير عدان هلو حاوتاكو كون بعلو السمي أنا اللوير كاس وحنا نقول على السمي إنك دكتور كان هيست دكتور وسط اللي يراها وهاي هلت بهرت دكتور اللي يراها وهاي هلت دكتور وستنا ولا يراها دكتور كان نك هيستوى حلوان يهودية نكنا وان يهودية انتو العقد ودن كاقاتو بهدو دونو ولالكي كربسينا يا إنان ودن كان كبورتو مصر المكيقلسو هذا شو حيث الدخاتير أفريكان أمريكانا جوبتا أو وناكسن أو كريمان وكو دودة مركا أنا وحنور الله قبل أهل عاوية ولالكا waxaan kala odhan lahaa waanu dayacannahay aad baanu u dayacannahay hana loo gurmado community hana loo sameeyo haddii kale dee dowladda soomaaliya maraakiib badda ha soo taagto haddayba awoodayso dadkan maraykan ha ku tiraado dee intii aa organka ka dhiganayseena ka dhigantay isbeer baadhi baanu nahay adigu gaadhigu markuu kaa kharaaba maad geen jirin body shop ama mechanic annaga carruurtayada xitaa waxaa la gaadhay heer kii la dilo
كدلي آن الحرين أو الربع إن يستصو حريان أو مدو الوقت كلا إسبير باركيس كان تاسان كتير عادل aad iyo aad baad u mahadsan tahay xaawtaako waa kuu mahad celinayaa aad iyo aad baad mataqaanaa waxa weye runtii u mahadsan tahay hooyo aamina waa ku jirtaa hooyo may maqlaysaa ayaan aad baad u mahadsan tahay hooyo ma waxaa jira wax aad rabtid inaad tiraahid oo aad soo gocotay ama hadda rabtid inaad ka hadashid miyay jirtaa ma runtii way taabatay inanta way taabatay wixii aan ama aan laaway ama aan oran lahaa waxa uu in la dadaalo oo Soomaali meel walba gacanta isqabsato waynu dayacnaa runtii ilaahayna ma dayaco innagana istacyaanay sababtoo ay tahay ma filanahayn inay sidaan aniga ugu dhacayso ragadi laba wiil ka hor inta u sheegay inay maanta si ay iga gaabiyaan newskan ku waasho war newskan barinanka way qashay marka hadal haan ma buuxsho laakiin inaanu dayacnaa aragnaa runtii dumarka Soomaaliyeed ee hooyada maalin walba ilmaheeda isagoo la qashay la hor keenayo marka ay hub inay isbedelaan ragga Soomaalida ay baraarugaan oo wax ku qaataan aad iyo aad baad u mahadsantihiin labadiinaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin guul baa ma ku soo yaro noqon karaa liibaan oo kelmad baan oran lahaa ku soco annagu halkan horta community kuma haysano kowdha shalay markaan wararkaadiga aragtay iyo qayladaydan dab asar ku barooranayna waa ninka qura ee qofka dhiiga galay Soomaalidu tidaawo waalan yahay waa ninka qura ee haddii laba riyaad isku dilayaan laamiyada Columbus isagoo life ku jiro soo saaraya shalay laakiin nasiib daro manaanu helin manuu joogin waadigii igu yidhi waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed ama dumarka Soomaaliyeed ee Columbus Ohio jooga inaanay community haysan inay iska rab qabtaan inay wiigaa gudihiisa isu soo baxaan inay mudaharaad sameeyaan inay looyarada inankaa loo qabanayo iyo kuwii hore oo aynu nidhaahno u gurmano nidhaahno xitaa meydadkii intii la yidhi COVID-19 bay qabaanba noo soo gura halkaasay iska yaalin dabadda iska yaalin mayd 100 sano joogay baa 30 sano ama 40 sano ama 50 sano yaa America meydkooda daba socotaayoo soo baadhayo ogaataa wixii ku dhiciyo wixii lagu sameeyey wixii lagu dhacayna in la daba galo kana laga tashado kuwa dambena ay shimbir u noqoto haddaanay dumarka Soomaaliyeed guntana annagu ragga Soomaaliyeed mid ilaahay u naxariistay mooyo wajhi kama sugayn wadaad iyo wahaabtoon sidaasaan ku soo gabagabaynay aad iyo aad baad u mahadsan tahay guul iyo gobonnimaan ku rajaynayaa iyo mataqaana caafimaad insha Allah waa isla xiriiri doonaa aad iyo aad baad u mahadsan Soomaaliyana gaarsiyo waxa tidaan intaad iscunaysaan isku haysataan kursiga ka soo qaadanaysaan lacagaha dalalka kale dadkiina waa hilbaha ragga idinka ilaahay idin bedeli lahaa waa ka organka ah laga dhiganayo isbeerbaad salaam calaykum wa calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad bay u mahadsan tahay hooyooyinkaas u mahadsan yihiin walaalayaal ninkan aad baad u mahadsan tihiin waad maqlaysaan ummadda Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan waa wax hadday kugu ahaan jirtay maqal ama wax aad mataqaanaa waxa weeye meelahaas ka dhaca hadday mataqaanaa kugu ahaan jirtay in qof nool oo soconaya la qasho oo beerka iyo kaliyaha lagala baxo waxaan u malaynayaa ka badan in lagala baxay u malayn maayo waxaan isri xitaa mataqaanaa xaniyihii iyo wax walba mataqaanaa ninka waa kala baxeen baan isri laanahu soo u dilaacsan yahay markaan mataqaanaa runtii aragnay waa wax aad iyo aad mataqaanaa runtii naxdin u leh waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan inaynu mataqaanaa maamadaas garab istaagno oo aynu ka caawinno adliisan looyaradaas mataqaanaa dagaalamaya oo mataqaanaa waxa weeye raba inay u dagaalamaan wixii mataqaanaa waxa weeye kharash ay iskaga bixin lahayd Soomaalidu waxay ku mahmahdaa wax mataqaanaa waxa weeye qof dhiba qabiil ma dhibaan bay yiraahdaan macnaha wixii qof dhiba community ma dhibaan macnaha waxa weeye inaynu caawinno oo dad badan waxa weeye wax ay qaban karaan easy inoo noqonaysa haddaynu isla qabanno oo inteena mataqaanaa wax bixin karta qof walba wuxuu bixin karo u bixiyo waxay noqonaysaa wax mataqaanaa waxa weeye la wada qabtay maxaa tiri mataqaanaa runtii reer Ohio farta ku godan community reer Ohio iyo masaajidada iyo culumada iyo mataqaanaa waxa weeye community-ga leader mataqaanaa community-ga reer Ohio farta inuu ku godan ma doonayo inaan mataqaanaa qofna cambaareeyo ma doonayo inaan qofna wax ka sheegno ma doonayo inaan qof si gooni ama mataqaanaa masaajid iyo cid gooniya si gooniya mataqaanaa u taabano laakiin waxaan rabnaa inaan raahno war farta inuu ku godan boorka iska jafa war boorka iska jafa war tan oo kale waa kiis weyn waa ilmahaaga ku dhacaysaa adigay kugu dhacaysaa xaaskaaga ku dhici kartaa dariskaaga ku dhici kartaa saaxiibkaaga ku dhici kartaa community-gaaga ku dhacaysaa waxaan ay ku dhacaysaa
haddaynan mataqaanaa waxa weeye haddii maanta loo yeeri lahaa mataqaana tiifiyaasha mataqaana caalamiga ah localka iyo kuwa mataqaana waxa weeye nationalka ama loo yeeri lahaa maanta waxa weye xaaladdu waa weynaan lahayd meel walba isqabsan lahayd waxaa xaqiiq ahaan lahayd raggii waxaa sameeyey maanta inay jeelka caawa u hoyan lahaayeen in gacmaha la isu soo saari lahaa ayaa mataqaana waxa weye xaqiiqo ah jas haddii mataqaana aad awoodi lahaydeen inaad u yeertaan newska inaad u yeertaan mataqaana warbaahinta haddana waxaan idinkugu baaqayaa inaad soo bannaan baxdaan reer ohio soo bannaan baxa sawiradii wiilka kusoo dhegsada asagoo qalan kusoo dhegsada mataqaana boorarkiina soo qaata isbitaalka hortiisa imaada meeshii mataqaana wiilka lagu qashay hortiisa imaada sawiradiisii kusoo dhejiya fiidiyoyaashii keena wax walba keena ilaa cadaalad laga helo ilaa xabsiga loo soo taxaabo kuwii waxaa ka dambeeyey haddaad soo baxdaan oo niyuuska u yeertaan oo fariisataan oo aad mataqaana boorarkiina soo qaadataan oo meeshaas mataqaana la arko awoodiina waxaan rabnaa oo mataqaana xaqiiqo ah in inta isbitaalka loogu golo gacmaha la isu saarayo hortiina in la soo marinayo asagoo mataqaana waxa weye iyagoo gacmaha mataqaana isu saaran yihiin ciddii waxaa ka dambaysay laakiin haddaad iska aamustaan oo afka xirataan oo mataqaana aad cabsataan oo aad baqdaan waa dareemaynaa mataqaana waxa weye kuwa mataqaana community leaderka iyo masaajidada iyo waa dad wada gariirayo oo dee meesha dhaqaalay ku qabaan dhaqaalaa la siiyaa masaajidadaas inta la furtaa waxaa leeyahay islaamaha wiil miyaa kaa xanuunsan mid miyaa jeelkaaga jira haa soo fur dahabka soo rid lacagta keen bahasha waa ducaynaynaaye markaasaa dumarkii eber laga siiyey wax kuu qabsoomayana ma jiraan ma rabta meeshaani duca haddaa rabtid adigu ilaahay bari sababta ilahay muxuu leeyahay adcuunii astajib lakum adigaa ilaahay baryi kara adiga haddii ilma kaa xanuunsan yahay haddii mid jeelkaaga jiro haddii welwelkana ku haysto haddaa adigu xanuunsan tahay haddii family problem ku haysto adiga ayaa ducaysan kara ogaada laakiin waxaan rabaa dumarka soomaaliyeed wallahi dhinac walba mataqaana waa usii baabi'een aad iyo aad baan runtii uga xumahay isu soo baxa dadka soomaaliyeed reer Columbus Ohio fadlan isu soo baxa waxaan ku baaqayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto inay arrintaas si dhab ah u qaataan dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa arrintan inay mataqaana soo farageliyaan inay mataqaana safaaradda la soo xiriiraan in mataqaana arrintaas waxa weeye kiis caalami ah laga dhigo dadkii Soomaaliyeed waxay noqdeen spare party dadkii Soomaaliyeed spare party bay noqdeen badankoodu fadlan ummadda caawinaad bay u baahan tahay hal is caawiyo reer Ohio waa la idin fiirinayaa isha in ku godan masaajidada dadka mataqaana baqayo waar habiqinina naftu maalin bay baxdaa community baad leedihiin ama geeri baa mataqaana si xayaataa lagu noolaadaa ama si xayaataa mataqaana waxa weeye loo dhintaa kaalaya mataqaana banaanka soo istaaga ha cabsanina waa hadlaynaa annagoo community leaders ahayn annagoo cid dhaqaale lagu siinaynin annagoo ilaahay dartib ma ahana mataqaana cidna protect garaynaysa ilaahay mooye aysan jirinin ayaanu hadlaynaa fiidiyoyaasha soo dhigaynaa mataqaana maalinlii hameen taaganahay waay haddaan xaqeenna iyo ummadeenna iyo mataqaana aynan u hadlin yaa u hadlaya haddaan baqano oo cabsano waa laydinku soconaya waa idinku mataqaana inta waa laydinkaga sii badinaya waxaan rabaa inaan niraahno gacmaha halays qabsado hooyadaas hala caawiyo insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay mataqaana waxa weye goofan mataqaana la furo oo aan mataqaana waxa weye sida ugu fudud hadday saas noqoto xaajadu ay noqoto waa in la soo wadaagaynaa haddii kale mataqaana waxa weye sidoo kale ayana waa in la soo wadaagaynaa qof walowba mataqaana maamadaas maskaxda ku hay waa arrin kiiska quseeya waa inaynu niyuuska ka soo muuqdaan nimankaasoo gacmaha aynu soo saarnay saas iyagoo mataqaana gacmaha la isugu soo saaray waa inaynu mataqaana waxa weeye aynu go'aansanaa inaan mataqaana ay arkaan oo cadaaladda ay faysgareeyaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin meel walba aad joogtaan waa inii mahad celinayaa Soomaaliya ha guulaysato ilaahay mataqaana waxaan arkayay waan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo kelmaddaas waxaan arkayay horta waxaan u tacsiyanayaa sidoo kale mataqaana waxa weeye alcadaala ninka la yiraahdo sorry alcadaala maaha ninka la yiraahdo mataqaana wariyihii lagu dilay Muqdisho iyo kuwii la dhaawacay ilaahay ha caafiyo wariyiheenni mataqaana caanka ahaa ee mataqaana waxa weeye magaciisa ii gooyay ii soo qora magaciisa ilaahay ha u naxariisto wariyaheenna mataqaana nin oo runtii barnaamijka gungaar ninkii wadi jiray buu ahaa mataqaana waxa weeye nin aad iyo aad u soo dadaalay nin aad iyo aad dalkiisa ugu shaqaynayo ahaa ilaahay ha u naxariisto Cabdicasiis Africa thank you so much mataqaana bintu Maxamed aad baad u mahadsantahay Africa Cabdicasiis Africa ilaahay ha u naxariisto walaalka dhaawacman ilaahay mataqaana ha caafiyo intii xanuunsan ilaahay ha caafiyo intii dhimatay Allah ha u naxariisto inaguna waynu dhimanaynaa ilaahay ha nooga doomo naxariisto aad baad u mahadsantiin Africa waa Cabdicasiis Africa waxa weeye waxaan arkay Cabdicasiis Africa oo ka faa'iideysanaya nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo soo qoray farmaajo dilay farmaajo wax ka og farmaajo saan sameeyay
waxaa la dilay wiil walaalkeen oo Soomaali ah baa beerkii lagala baxay iyo keliyihii asagoo dhakhtar tagay isbitaal in la daweeye tagay bal ka warrama maanta Cabdicasiis Afrika oo isbitaal tagay haddii la qali lahaa ka warrama oo isbitaalka inta lagu qalan lahaa beerkiisa kaliisa lala bixi lahaa oo wakaasa bali kaliya banaanki ma taqaanaa wixii lagala baxay ilaa xitaa aniga hadda kana aamsanahay guskii xaniin lagala baxay oo ilaah ma igu haddii si fiican loo raadin lahaa si fiican loo ogaan lahaa am thinking about ma taqaanaa waxa weeye insaan lagu sameeyey haddaan nidhaahno maanta marka ninkaas halkaas saas loo sameeyo oo Soomaaliyeed Biden baa og haddaan nidhaahno ka warrama Biden baa wax ku og Biden baa og Biden baa sameeyey qayb buu ka yahay ilaahay ku dhashay haddaan nidhaahno ka warrama Biden ma oga dambiga qof baa galay cidii ka shaqo iskale meeshii lagu galay cidii ka shaqo dambiga iskale ma fahmaysaa wadankeena oo kuwa argagixisada ay joogaan wax isku qarxinayaan qof nafti waraca isku qarxiyay ma taqaana qofkan Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu leeyahay ma taqaana farmaajo ka dambeeyay si uu dadka isku diro si uu qabiil isku diro si uu cunfi u kala geliyo si uu dadka nacayb ugu beero si dalkeenu u dimo si qarankeenu hoos ugu dhaco si wadankeenu dhibaato ugu dhacdo arki maysaan ninka leeyahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo u hadlaya ma taqaana dadka saa u dhibaataysan arki maysaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka qayb qaadanaya arki maysaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo lawyer u qabanaya ma taqaana walaalaha beerka lagala baxay kaliya hadduu wax kasta yahay Soomaali qof kasta uu yahay arki maysaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo wadankeena abaar baa ka socotee abaarta jirta ma taqaana waxa way ka hadlaya dad masaakiin caawinaya dhahaya abaar baa jirta arki maysaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo Kenya diyaaradaha ay ku duqeynayaan dadkeena dhahaya ma taqaana waxa way dadkeena Kenya duqeynta nooga diiso arki maysaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dhahaya badeena markii ma taqaana asagu uu bixiyay badeena Kenya ma qaadan karto mana u soo dhawaan karto waa ku dhimanayna asagoo dhahaya arki maysaan asagoo dhahaya faragelinta naga daysa imaaraadka arki maysaan asagoo wax ummadda Soomaaliyeed ay ku faraxdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur marnaba keenaya arki maysaan halka uu rabo inuu isku diro halka uu rabo inuu ciidamo iyo ma taqaana intuu sameeyo caasimadda ciid ka dhex buurto xabad uu bilaabo asagoo uu qarxiyo oo wax uu dilo iyo wuxuu qaxiyo ma taqaana waxa weeye uu ka dhigo arki maysaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo balaayo waxaan ahayn wada arki maysaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ummadeena u naxaya arki maysaan Dani iyo Axmed Madoobe ummadan wanaag u soo keenaysa arki maysaan yaa ka dambeeya mas'uuliyadda qaadanaya kuwa diidan qaranka inuu dawlad strong iyo intaan noqono maanta Mareykan miiska loo garaacay wasaaradda arrimaha dibadda soo ma qalmaysaan waxa la oran lahaa iga raali ahada waxa la oran lahaa ka soo jawaaba la oran lahaa 24/7 baa ma taqaana loo qaban lahaa waxa la oran lahaa 4 gudood baad haysataan email inta loo soo diro ka soo jawaaba ma taqaana waxa weyn ninka halka lagu qashay wallahi inaan been sheegin markaas isla marka waxa la sameeyay horta wixii kiis ka dambeeya gacmaha la soo saari lahaa waxa la oran lahaa saadinsan saana dhacday dadkii dambiga galay waa xirnay waa kaasa markaas Soomaaliyo ma taqaana safaaradda Soomaaliya maamulka maxkamadda iyo kiiska ay geli lahayd markaas hooyadan cadaalad dareemi lahayd markaas inagoo dhan waxaan ku dirsan lahayd in ma taqaana protect aan haysano kuwa hortaagan dawladnimada in qaranka hore u socdo kuwa hortaagan ayaa sabab u ah ma taqaana qiyaamana waa la weydiinaya qiyaamo waa la soo taagaya waa la weydiinaya waxa around ma taqaana caalamka Soomaali ku dhacaya kuwa qarankooda khilaafada u dhigaya haddaad moodi inaan lagu weydiinaynin oo ma taqaana inta dawladda progresso dhibaato geysatay hadhow iska raaxaysan doontido janno iska gali doontido aan cid ku weydiinaynin qof kasta wixii ma taqaana uu geystay iyo qof kasta mas'uuliyadda ma taqaana dhibaatada uu u geystay wax kiiska hoos ka dhasha ma taqaana wax way consequences ka dhasha waa laga xisaabinaya waa lagu xisaabtamaya waa la weydiinaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur aan ku aragno adigoo ma taqaana caawinaya maamadan iyo familkan dhibaataysan Cabdiraxmaan Cabdishakuur aan ku aragno adigoo maamadan iyo dadkan caawinaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur wadankeena abaar baa ma taqaana ka jirtay aan aragno adigoo dadka abaarta caawinayo si sax u caawinaya oo adigu inta tago lugahaaga ku socotay ma taqaana lacagta wadanka ku duminaysid ma taqaana waxa weeye oo ku caawinaya walaalayaal aad baad u mahadsantihiin dalkeena abaar baa ka jirta ilaahay abaarta wadankeena ha ka bixiyo walaal Soomaaliyeed hadda ka hor waa inii sheegay wuxuu dhahay warnay wadanka abaar baa dhacday ma farmaajo tagi doona warnay wadanka abaar baa ka jirtay abu yaalo ma taqaana ma ilaahay uu noo naxariistay markii dawlad fiican oo dadkii isku qalbi aan noqonay oo dawlad wanaagsan oo dadku ay rabeen ay timid ilaahay waa inoo naxariistay roob uu keenay nimco keenay barwaaqo keenay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa naxariistaad inaad soo celisid ilaahu risqa ma taqaan samada iyo midka dhulka iyo midka badda ilaahu arsaaqda samawaadka iyo dhulka iyo badda ilaahu Soomaaliya u fur ilaahu dalkeena irsaaqada u fur ilaahu dalkeena irsaaqada u fur ilaahu barakooyinka samawaadka iyo dhulka iyo badda ilaahu rabbiga dalkeena u fur ilaahu abaarta wadankeena ka bixi ilaahu abaarta wadankeena ka bixi ilaahu ummadda ma taqaana isjeclaysi ilaahu ummatan waahidatan ka dhig ilaahu hal ummad ku caabudo ka dhig rabbiga adiga kaliya ilaahu Soomaali ummad kaliya ku caabudo ka dhig oo isku xiran oo together ah waxaan oranaynaa dawladdeena Soomaaliya iyo madaxda ma taqaana iyo ummadda ma taqaana wax culumada iyo dadka cuqaasha ah war hal roob doono war hal isu soo baxo war hal is cafiyo war hal baryo ilaahay wuxuu leeyahay ad'uuni astajib lakum war ma taqaana barya ma taqaana waxa weeye waa in ajiibayay ilaahu roobkeen
ilaahu roob keen ilaahu naxariis keen ilaahu soomaaliya roob sii ilaahu u naxariiso ilaahu caalamka oo dhan roob iyo naxariis mataqaana ku camim ilaahu caalamka aan ku nool oo dhan naxariistaada ku camim ilaahu naxariistaada mar walba waad ku camimtahay ilaahu soomaaliya roob sii ilaahu abaarta ka bixi ilaahu colaadda ka bixi ilaahu kuwa dowladnimada iyo qaranka hortaagan oo caqabada ku ah adigaa og soomaali iyo waxaan soomaali ahayn muslim iyo gaal mid cad iyo mid madow ilaahu adigaa naga yaqaana naga qabo ilaahu naga kaafi ilaahu qarankeena iyo sharafkeena iyo cisigeena iyo umadnimadeena iyo karamkeena iyo inaan keligaa ku caabudno kuwa hortaagan ilaahu naga qabo oo nooga filno alaysa allahu bikaafin cabduhu ilaahu adiga ah midka addoommadiisa ku filan oo kaafiya ilaahu naga kaafi walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin guul iyo gobonnimo inii rajaynayaa soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha guulaysato ilaahay mataqaana amni iyo sharaf iyo gobonnimo hana gaarsiiyo walaashaas mataqaana soomaaliyeed iyo faamilka soomaaliyeedna aan caawino reer oo haayana banaanbax dabca sarow maamooyinkii mataqaana waa kuu darsadeen warmeeye meelahaas wareegaya isagoo Brazil iyo meesha la yiraahdo ishaq mataqaana meesha la ishaq maxay Mexico iyo meelaha isagoo wareegayo ka soo noqday meelaha wareegayo baan arkay war dabca sar hala soo qabto war dabca sar meesha abaabul mudaharaad samee ka qayb gala meesha hooyooyinku waa kuwa caleen fiidiyo mataqaana ay leeyihiin dabca sar kugu jabnay waxaan maqlayaa kuwa dhahay farmaajo kugu jabnay soo ma garanaysaa balaxaawo wallahi dabca sar kugu jabnay dabca sar ku mee dabca sar kugu jabnay waa run qofkii dhiig leh oo dadnimo leh oo mataqaana quality leh Soomaalidu waxay yiraahdaan waa waalanyahay ninkaas waxay dhahan waa waalanyahay is quality person weeye oo runtii aan ogahay waxyaabo uu mataqaana aan fiicnayn de qof bili aadan aan xumaan lahayn ma jiro qof wada nadiif ma jiro waxyaabo marmarka qaarkood way iska dhacaan laakiin ninkaas waa damiir Soomaalinimo iyo islaamnimo ku jirta wuu danqanaya markuu arka mataqaana qof problem haysto walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin guul iyo gobonnimo inii rajaynayaa intaasaan barnaamijka kusoo gabagabeynaya midnight ba ii noqotay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh